ogaaday in 46 qof oo cusub uu la soo darsay cudurka COVID-19 tirada guud ee laga baaray cudurkaasi 48 saacadood ee ugu dambeeyay ayaa wasaaraddu ay ku sheegtay inay yihiin 133 qof halka hal qof oo cusubna uu cudurkaasi u geeriyooday 46 qof ee cusub ee uu la soo darsay cudurka COVID-19 ayaa 16 kamid ah waxa yihiin muwaadiniin u dhashay wadankaasi Hindiya halka hal qof oo kalena uu yahay muwaadin u dhashay wadankaasi Kenya inta kalena ay yihiin muwaadiniin reer Somaliland waxana arintani ka warramay madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland waxana uu faahfaahin ka bixiyay guud ahaan xaaladda guud ee cudurkani iyo sidoo kale xaaladaha dadka laga helay cudurkani waana kan isaga oo faahfaahin ka bixinaya tirada guud ee cudurka laga baaray labada maalmood waxa weeye 133 inta 133 ka 46 kamid ah ayaa cudurkii laga helay dadka hadaba cudurka laga helay waxay isugu jireen 40 rag ah iyo 6 dumar ah waxaana ay kala joogaan 19 Hargeysa 19 Berbera 4 Boorama 4 Leeyacada sidaas ay isugu jiraan wadamada ama nationality-gooda jinsiyadoodu waxay kala tahay 29 reer Somaliland 16 Hindi ah iyo qof Kenyaati ama reer Kenya da'ahooduna waxay isugu jiraan ma jiraan wax ka yar 20 jir wax ka yar oo cudurka laga helay ma jiro marka waxay isugu jiraan da'ahoodu 20 jir ilaa 29 jir waxa weeye 11 qof 19 jir 30 jir ilaa 39 jirna waa 9 qof 30 jir 40 jir ilaa 49 jirna waxa weeye waa 3 qof 50 jir ilaa 59 jirna waa 6 qof 60 jir 69 jirna waa 4 qof 70 jir ilaa 79 jirna waa 2 qof 80 jir ilaa 89 jirna waa 1 qof dhimashada waxa dhintay oo kaliya qof Allah u naxariistay da'diisu ay tahay 86 qofkaas oo raga